Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkani ciyaaraha waxaynu soo qaadan doonaa wararka koobka adduunka Scotland oo gebi ahaanba macsalaameysay koobka adduunka wareega 32 iyo qaabka xulka isugu aadeen iyo sidoo kale Manchester City iyo suuqa kala iibsiga iyo guud ahaan kubadda cagta hadday tahay markii kugu horeysay subscribe noo saar haddaad hore noola joogto like iyo share noo dheh waad mahadsan tahay aan ku bilaabanay xulka qaranka Scotland ayaana guud ahaan macsalaameeyay koobka adduunka sanadka 2026 isagoo inay u gudbaan wareegga 32 ay ku xirneyd in xulka qaranka lagu magacaabo Ghana ay ka badiso Croatia ama bareejo ay la gasho kadib markii Croatia 2-1 uga adkaatay Ghana guud ahaan Scotland taageerayaasheeda way ka niyad jabeen marka loo sheegay warka inay guud ahaan macsalaameeyeen koobka adduunka iyadoo ay xusid mudan tahay in tababarahooda Carling markuu maqlay inay guud ahaan Scotland macsalaameysay koobka adduunka uu ku dhawaaqay inuu iscasilay xilkii 7 sano uu soo hayay Carling sidoo kale wuxuu yiri marka la ii soo bandhigay shaqadan dad badan ayaa igula taliyay inaanan qaban iyagoo ii sheegay inay ahayd shaqo aad u adag ayuu yiri waxaan ahaa wiil yar oo ka yimid Celtic Codless oo dalkiisa doonayay inuu hogaamiyo sidoo kale intaas wuxuu ku daray markuu dib u milicsado 7 sano ee xilku hayay waxaan dareenkayga ugu weyn aan qabo waa sharaf iyo sidoo kale qanacsanaan ayuu yiri Carling wuxuu sheegay in guushiisii ugu weyneed ay ahayd inuu dib u mideeyo xulka qaranka iyo taageerayaasha Scotland isagoo xusay guulihii waaweynaa ee uu ka gaaray Spain iyo sidoo kale Denmark wuxuu sidoo kale u mahadceliyay dhammaan ciyaartoydiisii la soo shaqeeyay gaar ahaan Anthony Robinson oo kaasoo uu ku yiri wuxuu ahaa ciyaaryahan aad u fiican oo runtii si dhiirigelin leh ila soo shaqeeyay guud ahaan intuu hogaaminayay ninka lagu magacaabo Carling ee xulka qaranka Scotland wuxuu hogaamiyay 81 kulan sidoo kale wuxuu 3 tartan muhiim ah Scotland geeyay Euro sanadkii 2020 isla Euro sanadka 2024 iyo sidoo kale koobka adduunka 2026 uu xulkiisa u soo saaray isagoo hadda ku haray wareegga gurubyada guushiisa wareegga 32 ay ku xirneyd inay Ghana ay ka adkaato Croatia ama ay bareejo ay la gasho dhanka kalena waxaynu fiirin doonaa xulalka ay sida isugu aadeen maanta oo axad ah 28 Juun waxaa wada ciyaari doona Koonfur Afrika iyo sidoo kale Canada Isniinta oo ah 29 Juun waxaa iswajahaya Brazil oo ka socota America iyo sidoo kale Japan oo ka socota Aasiya sidoo kale isla Isniinta Jarmalka iyo Paraguay iswajahaya Talaadada 30 Juun Netherland iyo sidoo kale Morocco waa laba xul oo aad isugu awood badan waa laba xul oo aad isugu dhow awoodooda isla Talaadada Ivory Coast iyo sidoo kale Norway ayaa wada ciyaari doona Faransiiska iyo sidoo kale Sweden way wada ciyaari doonaan Talaadada Arbacada oo ah 1 Luulyo waxaa wada ciyaari doona Mexico iyo sidoo kale Ecuador ay sidoo kale England iyo Congona way wada ciyaari doonaan oo qaaradaha Afrika iyo sidoo kale qaarada Yurub Belgiumka iyo sidoo kale Senegalna isla Arbacada ay ciyaari doonaan Khamiista oo ah 2 Luulyo waxaa wada ciyaari doona Mareykanka iyo sidoo kale Bosnia Spain iyo waxaa wada ciyaari doono isla Khamiista waxaa wada ciyaari doona Spain iyo sidoo kale kooxda Austria ama xulka Austria ee Group J ayaa wada ciyaari doona marka maalinta Jimcaha 3 Luulyo waxaa wada ciyaari doona Portugal iyo Croatia isla Jimcahana Australia iyo Egypt ayaa iswajihi doona isla Jimcahana Argentina iyo sidoo kale Cape Verde ayaa iswajihi doona Sabtida oo ah 4 Luulyo waxaa iswajihi doona Colombia iyo sidoo kale Ghana marka wareegga 16 sida la isku aadi karo Jarmalka iyo Paraguay waxa aan dhahaynaa Jarmalka soo bixi kara anaga ahaan Faransiis iyo Sweden waxaa soo bixi kara Faransiis marka waxaa isugu aadaya Faransiis iyo Jarmalka wareegga 16 sida la saadaalinaya wax walba waa suurtagal laakiin dhanka kalena Canada iyo Koonfur Afrika dhankan Canada ayaan siinayna oo Canada ay soo bixayso Morocco iyo Netherland marka waxaan mala saadaali karnayo Morocco waa xul awood badan sidoo kale Netherland iyaduna waa xul aad u fiican oo difaac adag oo xirfadna u leh sida koobka adduunka loo ciyaaro waxaan soo qaadanaynaa Netherland maadaama ay tahay xul Yurub ah marka Netherland iyo Canada ay isku aadi kara wareegga 16 USA iyo Bosnia dhankan ayaa kasoo baxay marka inta Mareykanka siinayna USA ayaa kasoo baxay inta Belgiumka iyo Senegal war iyagana isku awood oo kale waaye laakiin maadaama banooniga Yurub iyo Afrika la kala duwan yahay waxaan siinaynaa Yurub aan siinaynaa Belgiumka iyo USA ay isku aadi kara
marka Brazil iyo Japan waa xul aad u adag oo kusoo adkeysay xulka Netherland lagu magacaabo laba soo gashay bareejay la soo galeen Brazilna wayna ognahay in Morocco ay bareejay la soo gashay laakiin si walba Brazil ayaa siinayna sababtoo ah ciyaartoy waaweyn oo xirfad leh ayaa joogo sidoo kale macallin weyn oo intaasoo sano soo maamulayay kooxooyin ugu waaweyn dunida Champions League kusoo guuleystay ayaa hogaaminaya Carlo Ancelotti dhankan Brazil ayaan siinaynaa Ivory Coast iyo Norway waxaan siinaynaa Norway marka waxaa isku aadaya Brazil iyo Norway wareegga 16 sidoo kale Mexico iyo Ecuador waa Ecuador waxaan ognahay in 19 kulan ay biinta ahayd 19 kulan aan laga badin oo aan biinta ahayd oo darata ay laga badiyay laakiin mar labaad ay badiyeen oo Jarmalka ay garaaceen laakiin si walba Mexico ayaan siinaynaa maadaama ay yihiin martigeliyaasha oo taageerayaashooda ay dhex joogaan Mexico iyo Ecuador Mexico siinay dhan marka kale England iyo sidoo kale Congo waxaanu siinaynaa England maadaama ay joogaan ciyaartoy waaweyn sida Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice ay joogaan ayaan siinaynaa Argentina iyo Cape Verde Argentina inta ka siinaynaa Australia iyo Egypt Australia ayaan siinaynaa marka Argentina iyo Australia ayaa isku aadaya wareegga 16 marka waxaa leeyahay England waxay mari kartaa wada fudud haddii ay Congo wareegga 32 ay kasoo baxdo waxay ku aadi kartaa Mexico dhankan haddii Ecuador ay kasoo baxdo wareegga 16 marka England wareegga 16 Mexico bay garaac kartaa waxay sideed dhamaadka isugu aadi karaan Brazil xaaladooda ma fiicna England sida wadada fudud macnaha ay soo mari karto wareegga sideed dhamaadka Brazil bis ayaa ugu adag Brazil haddii kasoo baxdo afar dhamaadka marka Argentina ay la kulmayaan Argentina haddii kasoo baxdana finalka waxay isugu imaan karaan England iyo Spain waxay noqon kartaa sida Euro 2024 oo kale England waxay u baahan tahay inay koobkan qaado tan iyo 1966 koobkan ma aysan qaadin xitaa halkii koob ay qaadeen waa laga xaday taasina waa taa marka kooxaha u soo baxay wareegga 32 Mexico, South Africa, Switzerland, Canada, Bosnia, Brazil, Morocco, Mareykanka, Australia, Paraguay, Jarmalka, Ivory Coast, Ecuador, Netherland, Japan, Sweden, Belgiumka, Egypt, Spain, Cape Verde, Faransiiska, Norway, Senegal, Argentine, Colombia, Portugal, England, Croatia, Ghana sidoo kale kooxaha isaga haray Haiti, Turkiga, Tunisia, Jordan, Panama, Qatar, Czech Republic, Curacao, Ciraaq, Uruguay, Sacuudi Carabiya, New Zealand, Scotland guud ahaanba waxay isaga hareen koobka adduunka 2026 sidoo kale dhanka kale haddaan fiirino Manchester City iyo suuqeeda kala iibsiga Manchester City waxay soo qaateen ninka lagu magacaabo Elliot Anderson oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta Nottingham Forest wuxuuna noqday ciyaaryaankii ugu horreeyay ee British ah oo laga bixiyo lacagtii ugu badneed ee abid horey waxa uu ugu jiray kaalinta koowaad ama ninka ugu badan ee laga soo bixiyay ahaan jiray ninkan lagu magacaabo Declan Rice ee u ciyaara kooxda Arsenal kana soo qaateen kooxda hadda u dhaadhacday heerka labaad ee West Ham ayaa uu ahaan jiray Britishkii ugu qaalisanaa abid Declan Rice ka horna waxaa ahaan jiray ninka lagu magacaabo Jude Bellingham oo Real Madrid kasoo qaadatay Borussia Dortmund oo lacag dhan 103 milyan ay kasoo bixiyeen marka ninka lagu magacaabo Elliot Anderson wuxuu ka mid yahay 7 ciyaaryaan ee ugu qaalisanaa 5 sano ee ugu dambeysay afarta koox ee ugu waaweyn ee Ingiriiska ay soo qaadanayeen Arsenal, Chelsea, Manchester City iyo sidoo kale Liverpool marka lambarka ugu horeeya waxaa waaye Alexander Isak kaasoo Liverpool ay sanadka hore ay kasoo qaateen Newcastle oo lacag dhan 125 milyan kaalinta labaadna waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Florian Wirtz ayaa ku jira oo iyagana Bayer Leverkusen ay kasoo qaateen lacag gaaraysa 116 milyan iyo bar camal 116 milyan iyo xoogaa lacag oo kale kaalin saddexaadna waxaa ku jira Elliot Anderson oo hadda Manchester City lacag aad u badan ay bixisay sanadkan 116 milyan ay kusoo qaateen sidoo kale kaalinta afraad waa Moussa Caicedo oo Chelsea ay kasoo qaadatay Brighton lacag gaaraysa 115 milyan kaalinta shanaadna waxaa ku jira isla ciyaaryaan ka tirsan Chelsea waana ninka lagu magacaabo Enzo Fernandez oo kaasoo Chelsea ay kasoo qaadatay Benfica lacag gaaraysa 106 milyan
waxaana kaalinta lixaad ku jira Declan Rice kaasoo Arsenal ay kasoo qaadatay West Ham oo hadda u dhaadhacday heerka labaad lacag gaaraysa 105 milyan. Sidoo kale kaalinta toddobaad ee ugu dambeysana waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Jack Grealish kaasoo Manchester City ay 100 milyan kaga soo qaadatay Aston Villa. Marka toddobadan ciyaartoy waa shantii sano ugu dambeysay ciyaartoyda ugu badan ee kooxaha ugu waaweyn ay lacagaha ugu badan ay ka bixiyeen waaye. Sidoo kale Manchester City sanadkan aad ayay isku dhisaysaa waxayna ognahay inuu dhammaaday waayihii Pep Guardiola iyo tiimkiisa. Hadda waxaa bilowday waayaha Enzo Maresca, siisay heshiis ama qandaraas 2 sano ah oo ku hogaaminayo kooxda. Tiimkii Pep Guardiolana way baxayaan, Bernardo Silva waa baxay, Rodri isagana wuxuu dhahayaa aniga Real Madrid ayaan rabaa ha liga gado. Asagana waxay u badan tahay haddii Elliot Anderson meesha la keeno macnaha Rodri aa bixi rabo. Elliot Anderson iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Rodri waa isku boos. Haddii Anderson 116 milyan laga soo bixiyay, taasi dadka qaarkood ama falanqeeyaasha kubadda cagta waxay dhahayaan Rodri ayaa bixi rabo sida ay u badan tahay. Sidoo kale horey Kevin De Bruyne ayaa u baxay. Sidoo kale waxaa baxay ninka lagu magacaabo John Laporte ayaa baxay oo Manchester City wax weyn usoo qabtay. Macalinkoodii weyn Pep Guardiola waa baxay. Macnaha sidan wuxuu ku dhammaaday laleeyahay waayihii Pep Guardiola ee Manchester City. Sidoo kale sanadaha soo socdaan waxaa laga yaabaa inay kuwa qaar ay sii baxaan, hal camal ay sii baxaan. Haddana 116 milyan Chelsea waxay ku soo gadatay ninka lagu magacaabo Elliot Anderson. Waxaa baxaya laleeyahay ninka lagu magacaabo Rodri kaasoo laga yaabo inuu kooxda guud ahaan isaga dhaqaaqo xilli ciyaareedkan gudihiisa ama koobka adduunka. Sidoo kale tababaraha lagu magacaabo Thomas Tuchel ee hogaamiye England ee la weydiiyay heshiiska Elliot Anderson ay ku qaadatay Manchester City wax saameyn ah ma ku yeelan kartaa ciyaaryahanka ama xulka qaranka England. Wuxuu yiri haba yaraatee wax dhibaato ah kuma yeelan karto heshiiska. Sidoo kale heshiiska wuxuu dhacay kadib markii xalay England ay ka badisay xulka Panama oo 2-0 ay ku garaacday. Kadibna heshiiska Elliot Anderson ayaana dhacay oo tijaabada caafimaadka ayuu u maray. Asxaabey ciyaarihiina waa naga intaan. Subscribe noo saara